زرعا قال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسلا فلن تستطيع له عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي عن جعلهاي وكان بيش جوروي هدنا وحي ودرستي على أرورس على حساب مركي لجداي وحواي دبكذا لا هاي والله وضع السمينا هدنا الضوق وضع السمينا دبكذا لا هاي بشاي وقالتي يعني ويحبنا وكنا يعني واحد بدن واسوس لما يستركي هذا كهرنا هراني تصي alaabta iyadoo ay xirxiran iyo gurigaanid alaabta aan dhigay asagoo cusub qofkii jecelna hore fiidiyoyaasheeda dib ugu noqon karaa oo ka fiirsan karaa waa ujeedin hadda meeshaanid waxa waa Mr Bedroomka waa kaasa maasha Allah dhinac walba niga tusaaya alaabta saan u dhigay qof walbana commentiga hoos ha igu soo reebo in koraali ah musqushana saasa u qurxiyay haduu ilaahay ka raali noqdo waa kaasa meesha cadayga wax walba guriga maasha Allah guri qurxoon waaye waa kaasa Two Rivers waxay noo jirtaa 30 daqiiqo camal inoo jirtaa waa kaasa armaajada saana u sharxay haduu alla ka raali noqdo asxaabta aan jecelahay qolkii labaad hadda u soo gudubnay asagana jiif kumbuleedaan dhignay waa kaasa waa ujeedaa waa kaas maasha Allah sariirta ko oo Mr Bedroomka taalo saa hore nigu soo sheegay alaabteedii hore ka dambaysa tan waxay tahay alaabti cusub oo hadda la sameeyay
saa ujeediin maasha allah. waa ujeediina umaleynaya wax walba waxa waaye waa dhammaystiray. ilaaha kaamil ah. asxaabteeda aan jeclahay maamuna janaal guriga wax badan ay niiga maqneed maanta waa kana gurigii oo dhammaystiran ay niisoo duubtay bilbaha igu qaadatee. waa kaasaas ujeediin dhinac walba inka tusaaya. kusoo dhawaada guriga maamo muno janaal. waxaan leeyahay soo dhawaada asxaabta aan jeclahay. darbiga rinji cadaa marsan, irdihiisa saas waaye. horeyna asagoo faadi waa nii tusay. meeshaaniiti waxaa waaye luuqii nalal qurux badanna waa ku dhagan yihiin oo nii tusay. luuqaas dheer saas waaye gurigii. meeshaas roog yaraan qurux badanaan dhigay. iridaas xiran musqul waaye. meeshaas taleefonka guriga layskaaga soo wacay. qolkan waa musqushi kale saa ujeediin. waa musqushii labaadaan ii tusaayaa. maasha allah waa kaasaa. daawada daaqada waa taas saas waaye. roogaas yaraan dhigay. koleyba meesha lagu qubeysanayna dhalo waaye waa ujeediin. kalarka iyo wax walba way xilan yihiin maasha allah. qurux badan oo habi aan ku ahay. waa ku faraxsanay. daawooyinkii iyo armaajada la gashto iyo cadayadii iyo maalihii wax la saarsaaranayay waa kaasaa. meeshaasiitin waa meesha gacan dhaqa. hoosna waxaa la gashtaa meelaha oo shaambooyinka buraashyadii waa kuwaasaa maasha allah. waxaan leeyahay in kale inka dhiman kusoo dhawaada guriga maamuna janaal. waa kaasaa. daawasho wacan oo wanaagsan asxaabta aan jeclahay. hadda waxaan u gudagalaynaa jikadii u gudagalnay. waa ujeediin ridii jikada saan waaye. maasha allah. meeshaas waxaa saaran saacadii oo tokinka ahay. kookarkii xagga wax walba saasay u samaysan yihiin. armaajadihiisii maasha allah. alaabta haddaan dhaqo jikada haddaaba nadiifiyey. waa kaasaa. waa soo dhammaystiray. waa ujeedii armaajadihiisa say u badan yihiin ee u qurux badan yihiin. maamuna janaal waa kaasaa. dadaalkeedii waa kaasaa. insha allah waa ila wadaagi doontiin maasha allah. guriga waa ku habiyaan ku ahay. waa ku faraxsanahay yacni maasha allah. waa kaasaa. dhinacaasiitina waxaa iga xiga geedkii qudaarta lagu ridaayay. tiishka markii wax saaranayay. geedka raashinka lagu fuleynayo maasha allah. wandhayna waxaan iisoo duubi doonaa sida armaajooyinka iyo wax loo raseystay. maalin kalaan ka dhigayaa. hadduu alkaraan noqdo. meeshaas waxaa loogu talagalay washing machine laakiin weli ma aanan soo gelinin. waa kaasaa. mutulaalkii armaajada waa laysku xulay. waa ujeediina umaleynaya asxaabta igu qaaliga ah. maamuna janaal waxaynay leedahay soo dhawaada gurigeyga cusub. kusoo dhawaada. waan ku faraxsanahay. inkana waxaan rabaa sibodgareen duco dhiirigelin inta waa rabaa maasha allah. waxaana ku duceysanayaa gurigan gurigii aan ku degi lahay inuu noqdo. waa kaasaa. meeshaasiit waxaa waaye armaajada oo kabaha taalo. waa ujeediina umaleehayaa. waa kaas maasha allah.
koleyba subscribe iyo like iyo share iyo commentiba dhinaciina waaye asxaabta aan jeclahay. waxaan leeyahay meelahaasaytina qaandooyinkii ay ugu jiraan bakeeri gudaha manii furfurin, laakiin wandhigani tusaayaa sida alaabta loo raseysto ama armaajooyinka aan u laalaabto. waa kaasaa waxaan leeyahay soo dhawaada asxaabta aan jeclahay. qaybtaas waa qaybta bakeeriyaasha. maamun janaal waxay leedahay dadaalkayga waa kaasaa, ininkana duco iyo dhiirigelina inka rabaa hadduu alla karaar noqdo asxaabta aan jeclahay. maasha allah waa ujeediina u malaynayaa koleyba bakeeriyaasha wada aragtiin oo juuskii waxaasaan iigu soo diyaariyaa, laakiin sida loo raseeyo insha allah waa nin tusaayaa hadduu alla karaar noqdo asxaabtaan jeclahay. barsadiya hadda balkoonkiia aadayna kadibna barsadiyaan ku gabagabeynayaa. daawasho wacan oo wanaagsan. meeshaas waa armaajada kaba. hadda waxaan ii tusaayaa balkoonkii. balkoonka labadaas kursi aan usoo gaday. waa kaasaa maasha allah waa aaday u qurux badan yihiin oo way dhammaystiran yihiin. ilaaha kaamil ah. waa kaasaasaa ujeediin. banaankina waa nii tusaayaa. waa meel haddii balkoonka aa fadhiisata waa meel doog leh oo qurux badan. wax walbana dooqaa kusoo sameeyey. ayam habi wallaahi waa ku faraxsanahay insha allah. waa kaasaa dariskana waa kuwaasaa beerahaas iyo adduunkaasoo dhanne subax waxaa waaye indhahan roorooyihiin waa ujeediina u maleynayaa. maasha allah. master bedroomka waa daaqadaasaa ujeediin. balkoonka maasha allah waa ujeediina u maleynaa asxaabtii u qaaliga. waxaan igaaga tagayaa is aragti dambe oo xiiso leh. subscribe, like, share iyo comment agtiina waaye. anigana dadaalkaa haynayaa hadduu alla karaar noqdo. maca salaamo fi amaanillah asxaabta aan jeclahay.